weligay ismaan odhan urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qorraaye isa seega nagu dhacay waa amurinaga weyne isa seega nagu dhacay waa amurinaga weyne. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee qisadii isaseeg. dhammaadka sheekada qaybtii hore waxay noo maraysay Suleeqa iyo rakaabkii la socday oo lagu wargeliyay inay saf dheer galaan maadaama diyaaradii ka qaadi lahayd Muqdisho ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. safar saacado qaatay kadib waxay tageen dalka Itoobiya waxaana lagu wargeliyay inay saacado joogayaan halkani oo ay ka bixi doonaan markay imaato diyaaradda kale ay raaci doonaan. Suleeqa halkii ayay ka raadisay maqaaxi ay wax ka cunto. waxay heshay hotel ay saacado sii deganaato maadaama ay wax badan sugi doonto diyaaradda. waxay dib u soo gashay garoonka gudihiisa daqiiqado baaritaano qaatay oo dhib badan ayay martay. Suleeqa iyo dadkii la socday aad ayay u qalqalsaneed. waa markii ugu horeysay ee safar sidan u dheer gasho. intii uu baaritaanka socday ayaa waxa ay maqashay cod leh abaayo ma ku caawin karaa. waxa ay ku noqotay la yaab qofka xaaladan adag garab siin kara waa kuma. inta ay si dabacsan u milicsatay xaggiisa ayay ku tiri haa walaal Allah ku sharfo. wuu caawiyay in badan deetana inankii iyo Suleeqa ugu dambeyn waxay isla galeen qaybta fadhiga ee diyaaradda lagu sugayo. Samatar boos Suleeqa u dhow ayuu soo fariistay waxaana dhex martay sheekadan oo Samatar ayaa hadalkii qaatay. waxa uu yiri ma isbaran karnaa abaayo. haa walaal waad mahadsan tahay ee soo dhawow. magacaygu waa Samatar adigana waa Suleeqa walaal. Turkiga maxaad ka soo doontay? Samatar ayaa hadalkiisii wata. waxbarasho ayaan u socdaa adigana master ayaan ka soo diyaarin rabaa. hawlo shaqana waan u socdaa oo qolo halkaas joogta ayaan la shaqeeyaa. barasho wanaagsan Samatar waan kaaga mahadcelinayaa caawintaada. ilaahay ajar badan ha kaa siiyo. waan isku leenahay abaayo inaad iiga mahadceliso ma ahan ayuu raaciyay. waayo gabar Soomaaliyeed oo sidan u qurux badan inaan caawiyo aad ayay ii farxad gelinaysaa. waa inaynu si qoto dheer isku sii baranaa ee ma isiin kartaa meel aan ka wada xiriirno. marar kale ayaa laga yaabaa inaan dib u kulanno. waa runta aboowe ayay ku tiri. ugu dambeyn waxay u qortay lambarkeedii iyo ciwaanadeedii baraha bulshada. waxaad moodaa Samatar furfurnaantiisa in caajiskii oo dhan uu ka qaaday. waxaaba kasii daran inay weligood isyaqaaneen oo kale ayay usii sheekaysanayeen. waxaa mar kale soo caga dhigatay diyaaradii qaadi lahayd taasoo ay geen lahayd magaalada Istanbul oo ah caasimada dalka Turkiga. waxay wada raaceen diyaaradii waxaana la yaab noqotay mar kale inay isku boos fariisteen. sidii hore si ka daran ayay isku sii barteen. Samatar waa nin akhlaaq iyo naxariis badan. muuqaal ahaan waa nin dheer oo midab maariin madow khafiif ah leh. timo madow oo yara jilicsan leh. dhoola cadeynta sida magnetka oo kale qalbiyada ugu dheegagta ayuu Rabbi ku maleystay. qurux iyo itaanna ilaahay ayaa u dhameeyay oo ku galladay. wuxuuna nimanka asaagiisa ee Soomaaliyeed badi dheer yahay. waa xushmaynta dumarka iyo akhlaaqda suuban ee ilaahay siiyay marka laga soo tago barbaarinta waalidkiisa. Suleeqa waxa kaliya ay la dheegagtay waa naxariista iyo wanaagga Samatar. haybadda iyo dadnimada ka muuqata intii ay diyaaradda saarnaayeen. cabsidii oo dhami ayuu ka saaray hadba sheeko iyo siduu wax u daawadsiinayay. waxay ilowdayba inay safar tahay. cajiib. safar saacado dheer qaatay kadib waxay tageen magaalada Istanbul oo ay caga dhigatay diyaaradii dalka Turkiga. waxay tageen halkii ay u socdeen. Suleeqa walaalkeed ayaa ku soo dhaweynayay magaalada oo waxa uu ku sugayay garoonka halka Samatarna ay sugayeen saaxiibadiisii. isagu ma ahan markii ugu horeysay uu halkan yimaado. marar badan ayuu hawlo shaqo u tagay. way ismacsalaameeyeen. Suleeqa Samatar ayay bartay walaalkeedii cilmi. waxayna u sheegtay inuu yahay wiil wanaagsan oo aad u caawiyay. waad mahadsan tahay Samatar. barasho wanaagsan. magacaygu waa cilmi. barasho lamida walaal. sharaf iyo karaamo dushaada ha ahaato maadaama aad in badan soo caawisay walaashay oo aan dalka weligeed ka bixin. waan isku leenahay aad baan ugu faraxsanahay walaal barashadaada. annaga Ankara ayaan u soconnaa. diyaarad kale ayaan halkan ka raacaynaa. dib baan iskala soo hadli doonaa. waa yahay walaal. Suleeqa waan wada xiriiri doonaa. haye aboowe mahadsanid ayay u raacisay. Suleeqa iyo Samatarna halkaas ay isku macsalaameeyeen. qaybtii labaad ee qisadii jacayl ee isaseegna waa inaga intaa saaxiibayaal. intaynu ku kulmi doona qaybta xigta ee sheekadan waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.
balse haddii ay ku cajab gelisay sheekadan waxaan kaa codsanaynaa inaad la wadaagto saaxiibadaada. wixii tale iyo tusaalahana waxaad nagula wadaagtaa barta hoose ee kommentiga. mahadsanidina.